nin dagaal lagu yiqiin hadduu yiraahdo nabad aan qaadanna ka warrama sabab baa jirtaa Soomaa hadda nabad baan qaadanaynaa maxaa nin fiican oo inuu wax nala qabta diyaar u ayaa madaxweynaha waddanka ka noqday war may maqashaan aniga ma soo dooranin doorashada u dambeysay idinka waad soo doorateen ani kuwii hore baan ku tilmaamayay oo weli waxaan lahaa wuu ka sii xun yahay baan islaha laakiin markuu soo galay waxa weeyaan wuxuu noo qabtay wax nin madaxweyne oo ka horreeyay asaga oo noo qabtay uusan jirin war ma garataan waxaan ku moodeynay waxaad noqotay waxaan loo noqon doonay soo ma jirto markii hore kuwii hore baan ku tirinaynay soo maaha laakiin walaalkan buu noqday soo maaha annagana inaan macaaradna looma noqon doonay hadda waan garab istaageynaa dad badan baan annaga sababtaanada asaga u nacay muxuu Soomaali u soo dhawaystay baa loo nacay waad gartaan soo maaha waan ogahay waad fara badan tihiin waana sidii cawliyahanka cidnan faa'iidana way iska dhib badan tahay doorasho markii la gaarana 100 magac baad la baxaysaan Maxamed Abgaab Maxamed miyaha Maxamed iyo waad badan tihiin war may garateen shaqadan aan dhamayna wiilkan noo soo celiyay 5 sano markay dhamaato waad garateen Soomaa midda kale waxaa la yiri aayadda quraanka ahayd hal jazaa'u al-ihsaan illa al-ihsaan ilaahay baa adiga kula hadlaya wuxuu ku leeyahay wanaag ma lagu abaalgudi karaa waxaanan wanaag ka ahayn waa maya Soomaa jizada wanaaga soo wanaag ma aha ninkii wanaag ku taro wanaag baa loo taraa